السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مانسينا بوميل ربع عالم كجكسان وأنا ولكن أمين حسن إذن له كسر هذا مركز يوتيوب channel كيجا هذا كعصبته هاي وحنا كعصنا إن سبسكرايب إيسارتد هذا كهل مامنين تعوتد جنبالك ساتولا صعدت مقالة صوص عدا maanta waxaan jeclaystay in la wadaago qiso yar oo cajiib ah. qisadaas oo ah wax badan aad ka faa'iidi doonto ama wax badan ku xusuusin doonto. qisadana sidan ayay ku bilaabataa. boqor ayaa jiray markaas wuxuu ula dardaarmay wiilkiisa dardaaran cajiib ah. markaas uu wacay wiilkaygiyo waxaan rabaa kawahana u jeedid waa kawo aad iyo aad aan u jeclahay. waa kawo aan sanadooyin badan aan u soo isticmaalay. marka waxaan rabaa markaan dhinto kadib inaan kawahan lii xiro oo lila duugo. wiilkii ayaa ogolaaday. marka waxaa la gaaray dhimashada aabihii yacni boqorka. markuu dhintay kadib waxay imaadeen dadkii meydka dhaqi lahaayeen oo karfanta u xiri lahaayeen si boqorka loo duugo. markii la dhaqay kadib karfanta loo xiray wiilkii ayaa wuxuu xasuustay dardaaranka aabihii uga tagay. markii dardaarankii dadka meesha joogeen u bandhigay dadkii ayaa la yaabay. markaas waxay dhaheen taasi macquul ma ahan. laakiin wiilkii ayaa ku madax adkaaday. markaasi dadkii si walba u fahamsiiyaan wiilkii wax uu fahmi waayay. marka nin sheekh ayaa loo soo wacay. ninkii sheekha ahaa markuu imaaday asigana sidii ayuu dhahay ninka hadduu dhinto macnaha qofka hadduu dhinto karfan mooyaane wax kale lama duugi karo. laakiin wiilkii kuma aanan qancin jawaabtaas. marka waxaa la sameeyay ninkii sheekh ahaa wuxuu isku wada aruuriyay yani isku keenay dad yani culimo fara badan si yani xal loo helo. waayo boqorkii in la duugo waa la rabaa. laakiin wiilkii wuxuu taagan yahay haddii ba la duugayo aabaheegii waa in kabihiisa lala duugaa. markii culimadii ayaa la isku keenay yani waxay u fadhiisteen shir se u helaan yani wado banaan oo banaan karo hadduu jirto in kale. marka se u wada fadhiyeen yani wax walba ay raadiyeen laakiin wax natiijo ah waa kasoo baxi waaye. waxa uu soo baxday natiijo oo kale ee tahay waa in qofka karfantiisa mooyaane wax kale in lala duugin. ayagoo saas u jooga u murugeysan ee sidee waxaan yeelnaa ayaa waxaa imaaday nin waraaqad wata. markii ninkii wuxuu aaday boqorka wiilkiisa. markaas wuxuu dhahay aniga waxaan ahay aabaha saaxiibkiisa. wuxuuna ii imaaday intuusan dhiman ka hor waraaqadan ayuu iga tagay. markaas wuxuu dhahay yani markaan dhinto kadib waraaqadan waxaa gacanta ka saartaa wiilkayga waraaqadii waato ee iga guddoon. wiilkii ayaa waraaqadii qaatay. markii waraaqada kala furay waraaqada waxaa ku qornaa waad u jeedaa soo maahan xaaladda aad dadka aad gelisay yani dadkan aad isku keentay buuqan fara badan aad kicisay. halahaasoo idil waxay tahay waxaana sababay yani anigoo boqor ah oo haysta halahaasoo hanti haysta halahaasoo dad ii shaqeeya halahaasoo yani adduun oo idil aan haysta waxaa lii diidan yahay ee tahay kawahaasoo qadiimi ah inaan qabriga aan la aado. sidoo kale dhimashada adigana maalin ayay ku imaan doontaa. hantida hadda aniga aan ka tagay iyo hantida aad adiga hadda kadib aad ku dari doonto yeesan kula weynaanin adduunyada. waayo maalin ayaad ka tagi doontaa sa aniga hadda aan ka tagay. ogowna inaadan ka qaadan karin hal shay oo adiga aad leedahay. noqona qof yani dadka anfaca. noqo qof dadka masaakiinta anfaca. noqo qof mujtamaciisa wax u tara. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara. qof walba wuxuu tabsado ayuu laga abaalmarin doonaa. marka noqo adigana qof yani intuusan dhimanin ka hor dhimashadiisa u diyaar garooba. waxaan rajeynayaa inaad yani qisadan aad wax badan aad ka faa'iideen amaba wax badan aan ilowsanaa oo na xasuusiyay. inta aan ku wada kulmi doono muuqaal kale oo sidan ah waxaa idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.